magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendhada Afisyooni ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ay ku tartameen ilaa iyo 3 musharax. Musharaxiinta loolama ayaa kala ahaa Cabdi Xaashi Cabdilaahi, Saalax Axmed Jaamac, Ismaan Abuukar Dube oo dhammaantood ka soo wada jeeda gobolada Waqooyi. doorashada oo ahayd mid xasaasi ah ayaa waxaa codadka dhiibtay ilaa iyo 54 senatar oo uu ka kooban yahay golaha aqalka sare waxaana guusha raacday Cabdi Xaashi Cabdilaahi. sida uu shaaciyay gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha aqalka sare waxa uu mudan Cabdi Xaashi Cabdilaahi helay 28 cod halka musharax Saalax Axmed Jaamac isna helay 24 cod halka wasiirka warfaafinta Ismaan Abuukar Dube uu helay asagana codad gaaraya ilaa iyo 2 cod. senator Saalax Axmed Jaamac wuxuu helay 24. senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi wuxuu helay 28. senator Ismaan Abuukar Dube wuxuu helay 2 codnood. sidaa daraadeed waxaa codayntii ku guuleystay senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo helay Cabdi Xaashi ayaa mar kale 4 sano ee soo socota hogaamin doona golaha aqalka sare ee Soomaaliya isagoo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa gudoomiyaha golahani. ninkani oo ka mid ah rugcadaayaasha siyaasadeed ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa lagu xasuustaa xilalkii kala duwanaa oo ka soo qabtay dowladihii ay maamulayeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo. sidoo kale waxaa dhacday doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo ay iskugu soo sharaxeen ilaa iyo 7 senatar oo ka tirsanaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. balse nasiib wanaag Cali Shacbaan Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna helay codad gaaraya 28 cod. Cali Shacbaan ayaa doorashadani kaga adkaaday Cabdixakiim Macalin Axmed oo kula tartamayay kursigaasi kaasi oo helay codad gaaraya 25 cod. gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee aqalka sare ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka waxaana xumaaday 1 cod oo kaliya. sidaa daraadeed waxaa ku guuleystay codadkii Cali Shacbaan Ibraahim oo 28 ugu dambeyntii doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya ayaa hadda ku sii dhow heer gabagaba ah waxaana la filayaa in dhawaan la dooran doono gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa iyadoona sidoo kale ay weli taagan yihiin khilaafaadkii ka dhashay xildhibaanadii lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharey. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.